gudoomiyaha gobolka Awdal Cabdow Axmed Aayar ayaa maanta kulan la yeeshay isduubayaasha wasaaradaha laamaha dawladda ee gobolka. Kulankan waxaa lagu lafaguray dhalinyarta ka tahriibaysa Boorama oo maalmihii ugu dambeeyay ku soo saaciday magaaladan, isla markaana waalidiin fara badan ay baadi goob u galeen qaar kamid ah carruurtooda oo u tahriibtay dalka Liibiya si ay ugu sii galaan wadamada Yurub. Wuxuuna gudoomiyaha gobolkan isduubayaasha laamaha dawladda kala hadlay sidii loo hakin lahaa xawliga tahriibka dhalinyarta ee ku soo badanaya Boorama sidii dhalinyarta Boorama shaqo abuur loogu sameyn lahaa, isla markaana loogu wacyigelin lahaa inaysan naftooda ku haligin badda u dhaxaysa Talyaaniga iyo Liibiya. Gudoomiyaha ayaa waxa uu kulankan intii uu socday kula hadlay isduubayaasha laamaha dawladda ee gobolkan, waxaana hadaladiisa kamid ahaa: dad baa sida la sheegay waa silsilad isku xiran, dad baana tahriibta fududeeya waxyaabaha imika ku cusub. qofku bariga hore isaga lacag qaadan jiray dabadda uu tahriibi jiray si uu markuu xogaa helo, laakiin imika ku cusub inamadiiba baxaya iyo hablihiiba iyagoo bilaa lacaga, dabeetana meel baa la gaarsiinaya, telefoon baa loo dhiibayaa laleeyahay ku hada waaridkaa la hada. cid baa isku xidhan oo silsilada ay silsiladaas wayna muhalla. ciidamada amniga waxaa laga doonayaa arrintaas sidii ay u heli lahaayeen ay u furfuri lahaayeen. waxaa ka baxaya dalka waxa Liibiya iyo adduunyada kale jidka bahalo ku cunayaan ee badweyntu liqaysaan waa mustaqbalkii dalkeena. dad isduubayaashii wasaaradaha tii wakiiladii dawladdaati waa in aad ku garab gashaan sidii arrintaas ay noo qaban lahayd. sidoo kale gudoomiyaha ayaa kulankan intii lagu guda jiray waxa uu isduubayaasha laamaha dawladda ee gobolkan kala hadlay diyaar garowga xuska 22 sano guuradii ka soo wareegtay gooni-sutaaga Somaliland ee 18 May ee fooda nagu sahaysa iyo sidii loogu diyaar garoobi lahaa xuska maalintaasi. wuxuuna gudoomiyaha ka hadlay qiimaha maalintaasi ay u leedahay ummadda reer Somaliland. waa 18 May tan casha ka haray dhowr iyo 20 ka casha ka haray sidii ugu hawlgeli lahayn ee u muujin lahayn taageero buuxda qarannimada Somaliland. sidoo kale gudoomiyaha gobolkan ayaa kulan kale waxa uu xafiiskiisa kula yeeshay qaar kamid ah bulshada ku dhaqan caasimada gobolka Sool ee magaalada Laascaanood, kuwaasoo Boorama u yimid sidii ay u soo indheen lahaayeen horumarka muddooyinkii ugu dambeeyay Boorama ka socda oo bulshada iyo dawladda oo isgacan qabsanaya ay ka hirgeliyeen qaar kamid ah gudaha magaaladan Boorama. wuxuuna gudoomiyaha u faahfaahiyay mas'uuliyiintan ka timid magaalada Laascaanood horumarka ka socda Boorama iyo sidii Laascaanood ay ugu dayan lahayd. عبد الفتاح أحمد هاد وناق نيوز مقالة بورما.